waxaa maanta magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle soo gaaray qaybtii labaad odayaasha dhaqanka ee beesha xabaadle isla markaana qaybta ka ah soo xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe ku soo dhaweeyay guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle odayaasha dhaqanka ee beesha xabaadle ee maanta soo gaaray magaalada Jowhar ayaa ku biiraya odayaasha dhaqanka ee beelaha kale ee Hirshabelle daga isla markaana ku sugnaa magaalada Jowhar waxaana dhawaan bilaaban doonta soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdi Sheekh Xaaldow iyo gudoomiyaha guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cismaan Maxamed Mukhtaar Baari ayaa hadallo soo dhaweyn u jeediyay wafdiga maanta soo gaaray magaalada Jowhar waxaan soo dhaweyn wufuud aad iyo aad u qiimo badan oo ka socota guddigii beesha xawaadle ka mid noqon lahaa amba qaybin lahaa ergadii ugu qaybgali lahayd baarlamaanka ilaa dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan mahad weyn u jeedinayaa beesha xawaadle oo maanta wafdigooda ugu ballaaran soo gaareen waa idin sugayni waxaad ka soo jawaabteen maxaa la dhihi jiray baaqeynii jadwaleed ee guddiga farsamada uu faafiyey haddana waxaan leenahay soo dhowaada dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee beesha xabaadle maanta soo gaaray magaalada Jowhar ayaa sheegay in ujeedkooda magaalada Jowhar ay u yimaadeen inay tahay sidii ay odayaasha kale kaga qayb qaadan lahaayeen dhismaha maamulka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle aniga oo odaya saakay odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka waxaan u soo raacaan rabaa in idiin sheego caalamka ama binu-aadanka saddex markay gaaraan waxaa loo sameeyey inay maxaan ku idhahdaa rafiiq samaystaan qoomiyad dhan oo nool oo lahay nidaam sax maahan diinka islaamka iyo taariikhda maadiga labadaba ku macad waxaan rabaa in arrintaas waxaa dhacday Hirshabelle markii la dhisay ninkii la oran jiray Nicholas Kay oo iga UN ku joogay dhismay markay dhamaadeen dadka uu shahaada sharaftiisa aan ka mid ahay marka marti manihi waa ku maatanteed waxaan dhisaynaa Hirshabelle ilaahay oo mid tawfiiqna waafaji ilaahay mid xildhibaan sharaf lana waafaji oo saad la socotaan 20 sano ka hor dawladdan maanta dabada la haayo ilaa gobolooyinka raggi soo dhisay ayaan ka mid ahaa ilaa bagaati ilaa waqtiga xaadir alxamdulillah tiimkan maanta anaa hogaaminayo waxaana jeclahay in aan muxuu ahay dhismaha labaad ee Hirshabelle aan ka mari dhalin Ibrahim Ali Nuur TV Universal Jowhar